السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصحة صحة ميديا يصحة صحة ميديا جروب waxaanu idinku talagalay barnaamij cusub oo aan ugu magac darnay shanta sheeko iyo shaaha. barnaamijka cusub waxaanu maalin kasta aan ugu talagalay aan soo dhaxgelino shan sheeko oo qosol badan. shanta sheeko waxaan rajaynaynaa inay noqdaan shan sheeko oo idinku qoslin doona oo aad la socon doontaan oo sugi doontaan maalin kasta su'aalaha cusub sheekooyinka cusub ee aan soo wadno. sheekada ugu horeysa haddii aan soo qaadano iidle sheekada cusub ugu horeysa mada furi doona mise adaa inagu furi doona barnaamijkan maadaama barnaamijka uu cusub yahay. sheekada cusub caawa waxay noo furi doonaa Dr. Ashcari. ما شاء الله ورتي wax ka wanaagsan ma jiro inaad magaran aad furto ya hay fahanti ha goolka horeysan dhaliye hay sheekadii igu qosolka badneed horta aniga yaabis waxayd ninba magaran sayay quraan baa lagu tumiyay markuu yaraa moogti hay walcamadu ku fiicna hay tabeetana ninka cod macaan baa lagu yaqaanay hay soo bari dhexda ahaad ayuu ninku magaran sayay hawlihiisa batay quraanka waa ka tagay soo hay tan rag ay waa hore isugu dambeeyeen bay kulmaan hay tan rag baa soo qasbay ku inay codkaaga macaana kaalay oo quraanka inuu akhri صح tana masjidkii bay keenaan hay masjidka markay keeneen waa tujiye ma sha Allah waxaan ku wada codkiisa way ka heleen aad iyo aad dabeetana oriya hebel bi ku dhaantay codkaaga wad si fiican baan uga helay ma sha Allah waa la wada jeclaaday waxa laga dalbaday ninkiin markasta magaranaysa uu yimaado uu tujiye magaranaysa ay ka dalbadeen markaas uu ku yiri waliba maan waysa qabin hadaan waysa qabin lahaa waan ka socod macaan ninka dhamaa tujinaya oo imaamku waysa imaamkii dhamaa bilaa waysa hay ma waysa qabin ba marka marka waysa qabi lahaa uu ka socod macaan lahaa sheekadiisu baraajeen ya sheekadiisu iska baraajeen laayga mid kale inuu socodka macaanaysan kaasi kale horta wali ma maqan hay sheekada labaad inoo anaa barta kasii wadaya hay bari waxa la yiri nin deen ku lahaa hay markaasuu in badan buu soo baadi doono in badan buu raadiyay hay kana uu kala xilixanay kana uu kala xilixanay deen lagu leeyahay waa taqaanaa warkiiso sakada waxa ka indha dheer marka deen lagu leeyahay masaajidka xitaa salaada salaada masaajidka oo gasay masaajidka tukado qofka deenta ku leeyahay uu ka raadinaysa masaajidka la ku soo tukanaysa moogta marka ninkii oo in badan deentii ku lahaa ninka ee maanta ma iska soo horbaxay ninkii waree heblow ma heblahay lacagtadiisi markaasuu ninka lacagna ma hayo lacag oo siiyo ma hayo markaas ninkan in badan waad ka gabanaysid naxdinta marka qofka markuu deen kugu leeyahay ku qabto oo lacagta keen hadaa suuq dhexdiisa ku suuq bartankiisa awood ma lihid صح awood ma jimala ninkii saas u gariirayo lacagti wax la hadal ba ka soo bixi waayay hay marka mindi baa u xiran صح حتى مدير أنا حرام كان لك مدري كلام أو مدير نقول له نقول كعمل كحرية مدير أنتوا صلاة صباح حي أي سجس كذي مدير سيقول اسكجري كتشاي وأنا نينكي دينت لها وأركي نينكي إن كلا أو دينت كلها إنه بتطلع عكس ونفتو كبحذا ونفتو كبحذا مدير أنتوا سواق عطي أي سجس كذي مدير آخر حتى ما كانت بتجي حتى نفس إيرو دينه وعفين كريه ولها مرحوم كاسيد ومان wuxuu lahaa xasuusiyo inuu wixii hoo wixii yaraadi man nisbada deentidii waan kala xataa aakhira waan ku leeyahay kala daba tagaya hadda ka waxa ka soo qasal badna mid dadkaas ka xaraabo doonka ah maartay jecel meesha dagaal ku dambeeyay waxa aad aragtay inuu ka sheekeeyo waxyaabaha gabanayo sugayo bal isla labadan nin balka hada isku boodana kala dhaxay may bal aad aragtay adkaada aad aragtay oo sheekadii sugayay oo la socday ay arkay labadii nabi inay yihiin صح labadii nabi ka baxday kana wistray hay markaasuu noodala sheekadii aad sahayd aad ka war doontid waa tan oo dhamaatay maxaa samaysaa isniinta midii soo qabsay isgari ku sheekada halka ku dhamaatay sugay ayaa soo eegaya ila aakhir marka wallahi sheekadan shanta sheeko yashaha halka ku dhamaatay ninbo ka darnaayo ninka waxa ugu darnaayo kalku nimidka hor xoolaa lagu lahaa kagiyo kii wax ku lahaa oo ninka inuu taga arkayo oo hadana bakhaylnima kaga daba tagay waxa ka sii daran nin wax ku lahayn kii wax lagu lahaana ahay oo isagana isdilay
kaasi war wuxuu isu dilay kaas horta lamaasoo kale carabta waxay ku mahmaadaa albakheer khasaare maratayn bay tiraahdaa laakiin halkaa ma gasha maamaada ninkan labada jeers dilay lacag baa lagu lahaa lacag buu nin ku lahaa ninka ka dhimay lacagtii ka dhimatay isigii baa haddana isdilay asagoo lacagtii doonayo lacagtii naftii waa iska raacay isagoo lacagtii raadinaya ilaa haddana dib ku dhawaatay intaanaan sheekooyinka halkaa kasii wadin horta balse laakiin soomaalidu kelmaday mahmaaho carabiga ka dhigataa moogta dhibaatada waxaa keenayo waagi hore xaliir af carabiga la qori jiray soomaaliga waa lagu hadli jiray wixii 70-kii ka horreeyey marka dhibaatada waxaa keenaya waxa waaye waxyaabahaasi maadaama dad markoodii horeba oo ahayd luuqadii qorayay waxay qorayeen af carabi ahayd aan soomaaliba qorayn marka inuu kelmadaha inay markasta af carabi soomaaliga waa aragtay kelmado badan baa af carabi marka waxaa dhibaatada keenaysa markasta dadka carabiga way sii garanayaan inkastoo dee horta anu imaaraadkan kusoo noolaaday هذا حمارتي لولا ايه مساجر لغني ودالحيس ودو تيجي بري مساجر لغني 6 bilood baan ku noolaaday هذا حمار لغني لا ما دي والله واحد عربي ما هذا والصومالي هو ردي والله dadka meelaha Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo meelaha tagada ay mugtay arimahaas ka sheekayaan wax kale laga sheekayaan waa Soomaaliga horta horta arkaydo Soomaaliga bariga hore waxaan noo jeeday maamada baqli jiray maxaa geelo kooda weyn duudri aarankooda maxaa u maray oo carabi la yiraahdo عربي marka carabi ku macnaayeen marka hore carabi bay ku sheeg jireen moogtay laakiin carabigaas walba wada ila ibli kayf عين كان سان عين كان بيوري كيف ساعه في عيس عين كان ساس ايوه ترى بنت Soomaaliya boqolaa saaxiib bahayna wadanka ku marla jiray halka markaa yimi uu markaa ku carabi isugu maama ay fahmi waanba waxa ka daraaday fahmi waan markaas uu ma mid fahmaysa ma carabiya ma fahmayno marka waxaan ogaaday waxa laba inaan wax suuq waa suuq baayay Soomaaliya isku leeyahay waa carabi sida ciyaalka xaafadda waxyaabay maartay luqadda ciyaalka xaafadda ay kuleeyahay kuwaas oo kala waahid wariidle laba barnaamij ka bixin sheekada saddexaad ana hayno anu waxa tagaya baadiyahan tagaya wad inagiya ka sabaanay baadiyahan ku dheeraanaya magaalada ka baxay magaalada baxayna ka harin magaalada baxaysan ninkii diray nimanka weelay isku dilayay halka tagtay leeyina ninka baadiya wuxuu ahaa reemi xoolo ilaahay si duurkaas ku degana maalinka dambe islaantii xaaskiisa ayaa foolatay waxaa loo raadiyay meesha iska daa meesha ambulance inta lagu qaaday doctor regeynay malaha waxaa lahayd doctor duureed waxa la jiro dumarka u kala sii hore umulisada qof qof kistaana ma noqon karo ha warkan hiblaayo u yeer uu doonaa waa keena hiblaayo kala la keenay gabadhi foosha ku dheeraatay kadib ma dhashay dumar ma guriga ka soo baxay guriga aqal Soomaaliga asana banaanka ku sugaya ma dhashay maalinkii aday tagtay oo habeenkii xilli dambe ayaa soo laha qofkii ka soo baxo meerash wixii waxba kama dumarku ma dhaxgali karo halka hadii dhakhtarka daa tagto adaa ra'iis ka sii waa ka mutay magaalada iyo kala sii dibadii waana kala sii xishood bayn dadkii ninkii matay guriga guriga leeyahay ama qofkii ka soo baxo dhahay war ka war ma dhash may um baa leeyahay ma dhash may markii dambe xilli qof Australia joogo wareysanayo unday maradaan marka waxa sida aha ayaa markii dambe islaan baa soo baxday ma dhashay tiribu wax ka kacay afka suganta maraysa ka kacay way ka baxsatay waxa farxad baayday did baa ka mugtay way ka raacday markay ka raacday iyo hadara ayb dhigi hadda farxa dhigi hadda aan lahayn ilaa hoos gabadhaasi kala keen la ayaa hadana ceeb meel istaago uu garan way islaamada mid baa maqashay sama dhamaantood ma maqal laakiin hade wuxuu isdaasan yadiis wuxuu ka keenay waxa wax dhib lama yaano markii hore waa iska on waxay ilaahay ugu talagalay marka maanta waxa laga yaabi lahaa inay halka ku aamusi lahayd
marka wuu fikiray saantina dhashay adna hawlaha sagaara xageed aadaa waxaad meel aadi magaalooyin badan oo hadda oo sida hadda magaalooyinka inta magaalada ka guurta magaalada iska tagi kara sanad ma jirin waa soo yaqaan hadii guuraysan hadda xoolihii dhan xaafadii inta la rarto oo inteed u socotaa dadka baadiyan hadda waa la saddex jees baa qolba meel iska deganayeen marka wuxuu ninkii ku fikiray wuxuu ka oo maskaxdiisa la tashtay wuxuu meeshaba ka go islaahay guurda كذا تك هذا كلي كبحصو ها كلي كبحصو ها لا لا هذا هذا ونقوليا حافظ واركتي وضيقي المعذرتي ها لقى waxay kuleeyeen xagee u socota waxaad sheegtay ma haysid hada la dad baan dilo baxsanaya hada ayaga kuwa ku raaci lahaa meel lagu ogaan lahaa ama wixii ka bixin lahaa ama wixii ka bixin lahaa deedii waxba laga bixin lahaa wixii ma jiraan waa wax yar ninka loo dhuusan diray oo baxsaday wuxuu maqnaa 6 sano ayuu iska soo jaray meelahaas 6 sano dad buu iska kala noolaa 6 sano ilmi wada shay mo arag 6 waa wiil buu ahaa mo arag si uu joogay 6 sano markaas soo laabtay muxuu dhibal reerihi iska baadi doon kulli lagu ilaahay hooshadii 6 sano kale Soomaha wixina wax weyn ma ahayn soo joogaba iska dhamaan lahayd وكاس حافظ هذا سوق هيبسنا reerkii maalinba reer guuraa u maado wuxuu yiraahdaa reer hebel meel degiin wax sheega markay say meel halkaas kuba meel bay soo sheegaan ha soo raadinay maalinta reerku soo oo xaliir reerkii hin shaqar suuya soo socday oo ari meel daaqayo oo casir xilli gaaban taariikh xilli casirada guriga xaafadda baa lagu soo dhaweeyaa waxa marka dadana la xarayo oraxda intana barqada aruurti ka baxsan ka baxsan waxa la yiraahdaa meeracad wakaas ariga meeracanayo xaafadda kadan ku meeracanayo soo marka waxa ariga la joogtaa gabar shaantii oo maartay deeran iska dhaw iyo wiil yar wiilkana waa kiisii 6 jir marka soo socday markuu halka u soo dhaweeyay laba geed u dhaxayso ayaa gabadhii gabar kala u maatay war ka war xaalad oo soo wareey sheekaystaan waxa dhan warkii kan yar yaa dhalay markaas ay tiri inay hebel u soo والله سرقت markaas uu dhigay hadana meesha ka baxsaday kale soo fiirto buukar ganto ما بصور نقوم ما بحافظ ما بصور شيء غيرك ما دي بمو صور شيء لحظة مقنعة إلا شكله يقول قصل قبضنا من صور دورتي هذا كوت إلوي سومالد حركان سومالد وحرك قف إلى هاي حسكي قاعدة أو كستا wuxuu ka xanaaqay yaqaan markii hore ku waala waxbay ku dhiibaya markii hore bac ku xidhan qofka isagoo bacdi ay ku xidhan ayuu watiisiiba maskaxdiisiiba tagtayba markaas wixii hadalkii ka xanaaqay hadalkaas waa hadalku ka xanaaqi jiray markuu meerka qabo marka horta niyo wallahi waa Soomaalidu waa dhibaato dadka laga daayay waxa jira marka dadka qaarna waxyaabo dadka markay reer magaal yihiin wax badan horta ma danaynayaan waxa ay wax u dhow ma danaynayaan laakiin dadka reer wallahi way dhib badan wax badan ba wax yar ba wax waligiis soconaya qofka Soomaaliya waxa ba u dawo ah wuxuu qof kale ka xanaaqaya inaysan dawsi taabanayaan boogti bay si taabanayaan waalay qofkiga waalay waliga waxba u dirmayso wax ku aaminayso qof mar waa shay hadoo ilaahay tan biirkiisa waxa la nimirtay maxay tamaan kuma soo noqdeen wax baa maqano boolal baa laga soo tagay beelay ilaahay baa u soo celiyay ilaahayna ka qaaday laday mooyee boxdi ma labeen oran imsa boxdi marka dadka yaan la dhibin iyana waxba hadal ku si dheeraan sheekooyinku ina socdaan meesha ka daawanaysan ama ka daawanaysan waxa weeye saxan media waxaan ku socon doonaa sheekada kale ee ku xigta oo ahayd oo ah tii afraad waxa weeye sheekaas waxay noqon doontaa miyaad kaan doontaa waxay noqon doontaa in badisli xaggaas iyo anu qaadaba beriga waxa dhacday muddo xooggan maraa ayaa gabadh ku guursaday kulay dadkii beriga hore iska dawada xoog laba nin saddex nin ku cuni jiray saddex nin ku cunaan awogii baa ka soo gaaray oo jeex geela buu la qabay dabeetana ayaaba inan buu guursaday moogti inantii markuu guursaday muddadii dhowr sano
waxba waa ka qaadi waayey waa ka dhali waayey xag ilaahay weeyaan ilaahay dii haye murbigu dhali waayeen waa adigu in badan waa la sugay waxba ilaahay u kala siin waayey haye markaas loo sheegay inanta hooyadeed ayaabaa tiri bal ii geeya inaan reerka aan usoo duceeyey reerka u tagay soo eegay so waa markii ugu horreysay arkaysaba dee sidii ay inanta loogu adeegay guursadayba markay xaafadii timi maalnimadii ayaabay galabtii tiri bal ninka inanta iga qaba halka haabal iga tusabay tiri tusa ninkii ma garanayso ninkii oo dee meel soo socda dee ayaabaa lagu yiri kaaniga inanta qabaa inta saa eegtay waa nin xoog saa xoogdi si bog u socday walla inaan niga xoog gaalay inta ka ilma dhali waayo inuu hakranaya meel kale ka jiraa ma jiraan waa hakranaya waxaa sidaya marka waxaa sidaya baashu inaan xoogayno horta waxaas wallahi Soomaalidu ma ogtay sheekooyinkooda badanaa waxa weeye un qosol iyo xigmado ayaa ku jira laakiin ma aha wax saa ay uga jeedaan ma aha dhan kale loo hadlay marka waa sheekadii afraad beentaa kusoo gabina waxaan ku darsanaa hal sheeko oo kale kusoo khatimayna inta aynaan sheekada u gelin sheekada shanaad aynaan kusoo afjarin asxaabteena waxaan leenahay barnaamijkan la socda asxaabtiina usii gudbiya in la wada qoslo oo la wada sheekaysto oo anaguna aan idin soo gudbino oo waqti idin gelino idinkuna waqtina gelisaan way fiican tahay aad iyo la kala faa'iido la kala maxay dee guryaha lagu jiraa imika waxaan ku waa kulli waa loo fiican yahay waa fiican tahay in coronavirus ay jirto marka sheekada shanaad aan ku khatimi doono barnaamijka waxa weeye waxay la tahay kolley midii ugu sheekooyinka midii maadaama lagu khatimayo midii ugu qosolka badneed inay ahaatay horta taa waxaan soo qaadanaa mirqaanka iyo dhibaatada uu leeyahay qaadka marka dagaal baa meel ka socda baa layidhi oo jid ka socday meel xuduud ah oo laisku dagaalayay dagaalkiibaa markaa dad baa ku dhaawacmay oo dad baa ku dhintay oo markaa dadkii dhintay baa waxa lasoo saaray liiskood inta 15 qof lasoo saaray meeshii lagu aasi lahaa ayaa waxa lasoo saaray ambalaas baa lasoo saaray muqtal lagu soo guray marka iyagoo ambalaaskii saaran dadkii ayaa ninkii darawalka ahaa oo iska murqaansan oo qaadkii iska cunaya oo cirka maraya BBC usoo gashay BBC daarta BBC markuu daartay wuxuu maqlay 14 ayuu maqlay 10 qof ayaa ku dhintay dagaalkii ka dhacay meel heblaay ka dhacay sagana maxaa loo soo dhiibay oo saaran 15 meeyda gaariga saaran shan budeer yahay laakiin waxa iska soo qiyaasay qiyaas baa hayday tan dadkii mar kastaba lama sheego wax sax lama sheego marka ninkii murqaankii un baa tusay leesma oran dadkii meedka maanta dhan la gurayay 15 qof aasi waa meedkii iyo dadkan war uma hayaan BBC la dhamay ka soo waramaysan wax loo sheego ona dad soo dhagayeen waxay ka sheekeynayso gaarigan bunti break u qabtay حاجه ده مفرق شنتي العيار شنتي العيار عرميت كاي مركز النكبه هي انت انا اذا سو قبل اسكي سو دغ نكب ادبو سو دغ ويدي اي اذا مركز سو دغ ويدي بو sheekadina ila isagu waa qaadkii iyo waxa soo dhashay 10 ma ku rakibay ninkan 10 ku xiran markaas wuxuu sameeyay dhowr jeer markuu hanjabay iska soo dega damameed baa soo dega marka hore soo fuuli lahaa ayuu 15 marka hore soo fuuli lahaa kimeedka haba sidoo jiiday ayuu mar mid jiiday dhulka wada geey kulli wax nool baka raadinaya wadnaha wada taabtay mise waa finish oo wada dhintay yaa u saaray gaariga hadda meed hadda ay umugtay taa soo tuurto iska soo dhacayo laakiin hadda markan in adigu kor u qaado meel aan saartay marka horta bahalka qaadka leeyahay waa dhibaatada uu leeyahay ay halkaas aan maxay ay cadeynaysaa beenta dagaalada kala boqol ku dhinta loo leeyahay shambaadin may hadda wixii TV da lagu isdaynayo xaqiiqadu markasta maaragtay way ka yaraa
inkastoo weligeedna dee marka xaqiiq laga tago maaragta weligeedba dagaal haddii la galo koox kastaaba dhimasho iyo dhaawac way iska yaraysaa way qarinaysaa way qaraysaa si aan 20 adi 10 laga soo qaaday 10 la diraya 30 15 marka maxaad leedahay asxaabteena haddaba inagu xidhan ee saxa saxa media ku xidhan asxaabteena waxaan leenahay soo dhawaada idinka baan insha Allah sheekooyin badan idin keeni doonaa haddii alla idmo dee nala qosla oo dee nala qosla oo waxaan ku uri noo soo comment gareeya sheekadaa ka hesheen koob baa la dhigi doonaa insha Allah haddii ilaahay ka dhigo dee waxaan ku uri 5 sheeko iyo shaaha dee waxaan kaga tegaynaa asxaabteena waxaan kaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh